waxaa xalayto dalkan Britain ku geeriyooday Allah u naxariistay Cabdi Xasan Buuni oo ka mid ahaa siyaasiyiinta Soomaalida ee muddada dheer ka muuqday fagaarayaasha siyaasadda. Cabdi Xasan Buuni waxa uu iminka ahaa wasiirka xiriirka golayaasha ee Somaliland. Wariyaha BBC Axmed Siciidege ayaan goor dhoweyd telefoonka ku wareystay oo wax ka weydiiyey taariikh nololeedkii Buuni oo muddo ay is yaqaaneen, waxaanse marka hore weydiiyey bal inuu iga warramo geerida marxuumka. cabdi nuur oo ilaahay ha u naxariistee cabdi xasan buuni wasiirkii xiriirka golayaasha ee Somaliland waxa la xaqiijiyay hadda goor dhaweyto in uu ku geeriyooday magaalada London cisbitaal ku yaala oo qalliin wadnaha loogu sameynayay. waxaana arintaasi in xaqiijiyay eheladiisii, waxaana BBC dad si gaar ah ugu xaqiijiyay xogayaha guud ee golaha guurtida Somaliland Cabdilaahi Ibrahim Habane, iyadoo eheladiisina dad badan ay telefoonka ilaa iyo saacadda intaynaan soo gelin hawada nagala soo xiriyeen Boorama iyo halkanba. waa tahay ilaahay ha u naxariisto Cabdi Xasan Buuni. waxaanu la soconnaa nin siyaasadda muddo dheer kusoo jiray inuu ahaa xorriyaddii ka hor midowgii ilaa iyo iminka oo wasiir ka ahaa Somaliland. maxaad iiga sheegi kartaa taariikhdiisa? ilaahay u naxariistay Cabdi Xasan Buuni in badan baanu sheekaysanay oo gaar ahaan nin bulshada buu ahaa Cabdi Xasan Buuni oo siyaasi ah oo dadka la soo fadhiista mukhaayadaha gaar ahaan hoteelka weyne xaraf la yiraahdo bartamaha magaalada ku yaala ayuu dadka la soo fadhiisan jiray oo la sheekaysan jiray hoteelka Mansoor. marka Cabdi Xasan Buuni 60kii markii labadii gobol ee Soomaaliya dhinacii waqooyiga ee Somaliland 26kii June ay xornimadooda qaateen, dabadeetana ay la midoobeen 1 July dhinacii kale Talyaanigu gumaysan jiray koonfurta. waxa uu ahaa baarlamaankii 30 xubnood ahaa ee halkan ka tegay Hargeysa ee dhinacan Somaliland metelayay, dabeedna midowgii buu ka qayb galay. waxa uu Cabdi Xasan Buuni la sheegi karaa inuu ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii ugu horeeyay ee jamhuuriyaddii Soomaaliya ee markaasi dhalatay. halkaasi ayuu siyaasadda ka ahaa muddo, waxaana uu sheegi jiray markii dambena uu mucaarid noqday ilaa uu siyaasadda ku jiray ilaa inqilaabkii uu ka dhacay 1969. kadibna waxa uu wareegay dhinaca ganacsiga oo gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose ayuu beero waaweyn uu ku lahaa sida uu sheegi jiray. waa tahay markii dawladdii dhexe meesha ay ka baxday oo burburkii uu dhacay iyo dhismihii Somaliland iyo intii ka dambeysay ma dhinacan uu soo wareegay iyo Hargeysa? wuu soo wareego wuxuu sheegi jiray had iyo jeer markii dagaaladii ay dhaceen ee xataa beerihii iyo hudheel weyn oo baar Buuni la oran jiray oo uu ka sameeyay wadadii u dhaxaysay Afgooye iyo Muqdisho ay wixiiba la boobay la biliqaystay ayuu dabeetana u soo wareegay xaggan. muddo waxa uu ka qayb qaatay markii dagaalada sokeeye ay ka socdeen halkan gudidii nabadeynta ayuu ka mid ahaa debadaha ka yimi isagoo markii horena tegay London. halkaas ayuu kasoo kasoo noqday, dabeetana markii dambe waxa uu noqday wasiirka xiriirka golayaasha oo muddo uu hayay oo had iyo jeer isu soo dhaweyntan markay noqoto golayaasha iyo xukuumadda uu qayb weyn uu ka qaadan jiray iyo xagga odayeyntaba oo Hargeysa ayuu saldhigiisu ahaa. aad buu mahadsan yahay wariyaha BBC Axmed Siciidege oo iga warramayay Allah u naxariistay geeridii siyaasiga Cabdi Xasan Buuni oo ku geeriyooday London. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London.